kadib imaashihii Donald Trump ee xafiiska waxaa aad cabsi weyn usoo food saartay dadka magaranaysa sogolootiga ah gaar ahaan dadka magaranaysa Latinoska ah ee Latin Americanka ah sida Mexicaanka magaranaysa Honduraska, Guatemala, Nicaragua dadkaas oo dhan runtii saa ogtahay Mareykan markay noqoto sogolootiga dadka ugu badan jooga waa dadka ka yimaada wadamada South and Central America. Marka anu maadaama aan xogaa ku hadlo aan garanayo luqadda Isbaanishka magaranaysa iyo luqadda Isbaanyool yacni ilaa intii uu Trump xilka yimid waxaan si dhow magaranaysa ula socday u daawanayay xaalad dadka Latinka ku sugan yihiin ku nool America runtii waa xaalad murugo ah cabsi ah banaanka ay soo bixi karin qaarkood cabsanayaan qaar baa jira in fara badan waddanka joogay oo ilaa hadda aan sharci lahayn 20 sano 15 sano 10 sano dad Latin waddanka joogay iska shaqaysanaya laakiin aan sharci lahayn marka bal in yar baan fiidiyoyaashooda soo hadlayaan Latinka. Nervous and it's so hard. You know, I knew this day was gonna come. I know no tiene que agarrarse de Dios y estar positivo todo el tiempo, pero esto no es fácil. Esto es algo que da mucho miedo. Yo sé que muchas personas están en mi posición. Dijeron que estaba exagerando, que la gente está asustada. Güey, si están asustados. En este gimnasio al que vengo yo vienen un 50% latinos y el otro 50% entre blancos y gente de color. Y güey, nada más vino el 50% de... Marka sida ognahay doorashada Mareykanka dadka ugu badnaa ee taageero waxay ahaayeen dadka Latinka dadka magaranaysa Carabta dadka sogolootiga laakiin waa kuwa sharciga leh ee macnaha magaranaysa codeyn kara laakiin maanta dadkii Latinka ahaa qaasatan kuwa magaranaysa aan sharciga lahayn runtii magaranaysa waxaa bilaabatay cabsi weyn fikir badan murugo badan magaranaysa qaarkood waddanka waxay joogeen intaasoo sano naag baxta daawanay xitaa waa anu wax ka baqay ku bilaad laakiin waa tus lahaayeen waxay tiri waddanka waxaan soo galay anoo yar waxay tiri 7 jir ah maanta waa naag weyn ilaa hadda sharci ma leh way cabsanaysaa luqadeedu waa native English wax sax ah ku hadlaysaa laakiin sharci ma laha marka dad fara badan oo Latin ah oo Mexican ah oo Honduras oo Guatemala ayaa jooga Mareykanka kuwaasoo muddo badan joogay laakiin aan sharci lahayn dadkaasi marka maanta waxaa soo wajahday cabsi weyn fikir badan murugo fara badan runtii waxaan garanayaan ku hadlo luqadda Isbaanishka waxaan runtii daawadaa magaranaysa TikTok-gooda YouTuberada meelaha ka hadlaan runtii magaranaysa aad cabsanayaan waxaweyaan waxay ku leeyihiin ay mucha miedo macnaha waxay cabsi badan aad u cabsanayaan sida hadda video hadda in daaray naagta hore oo kale waxay leedahay ninkaygu waa nin sogolootiga sharci ma leh magaranaysa markasta uu ka baxo albaabka waxay leedahay waxaan ka fikiraa ama la qabtaa ama la tarxiilaa ama la xiraa bay leedahay marka yacni aad runtii magaranaysa u cabsanaysaa marka dadka Latinka ah iyo haddana ina Soomaalida maxaa u dhexeeya runtii dadka Latinka ah waa dad magaranaysa runtii Mareykan magaranaysa jaarlaalo u dhow qofka hadda Guatemala ka yimid haddii lagu celiyo waxay berito soo laabanayaan haddana qof ka yimid Honduras haddii lagu celiyo waxay haddana berito soo laabanayaan yani wadada way dhowdahay laakiin Mareykan waxaa maanta yani kasii daran qofka Soomaaliga ee Afrika ka yimid ayaa magaranaysa ka cabsi badan waayo qofkan Latinka wuu cabsanayaa wuu fikirayaa yani dhibaato haysta laakiin qofka Soomaaliga ka yimid kasii daran waayo adoo Afrika markii lagu tarxiilo yani waa dhibaato hadhowtu wax ku qaansa waqti badan Brazil ma loo ogolanaya ka digto sida visa ku helaysaa dhib kasta badan baa jira laakiin dadka Latinka iyo wadii la tarxiilo haddana magaranaysa way soo laabtaan tusaale waxaan markaan Turkiga joogi jiray ayaa waxaan arki jiray
dadka Syriyaanka kale iyo Ciraaq oo kale iyo waxaa ku leeyahay haddii xataa nala tarxiilo anaga waxaa ku leeyahay waddankeena waa kana berita haddana macnaha soo galayaan haddana laakiin qofka Afrikii markii la tarxiilo yani waa dhibaato asxaabi waxaan ku codsanayaa subscribe like ومسنت سير فرحان